kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiina meel walba joogtaan waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha waxaanu ku soo qaadan doonaa qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin kooxda Liverpool oo hogaanka sii dheereysatay, sidoo kaleento Chelsea iyo Arsenal oo kaalmaha labaad saddexaad ku kala jira ayaa ayaguna hami weyn ka qaba inay markaa ku guuleystaan horyaalka Premier League 2024-2025. haddaba daawade haddii aad nagu cusub tahay fadlan follow inoo dheh page-ka siina share garaysi oo meel dheer u gaaro warbixinteena. aynu ku bilaabay kooxda Liverpool ayaa xalay waxa ay kooxda West Ham oo ay markaasi gurigeeda ku dheeleysay West Ham ay kaga badisay 5-0 oo ay dhegta dhiiga ugu dirtay. haddaba Liverpool ayaa waayadan laga yaaban yahay xagga goolasha iyo xagga guushaba intaba xaggooda ay jiraan. Mohamed Salah ayaa u muuqda wiil da'yar oo dhalinyaro ah oo imikan carcar ah oo hadda soo baxay 18 jir ama 15 jir oo kala. Salah ayaa waxa markaasi dheelaya kubado oo xeeladoodu oo aad u sareyso dhan kasta ay ka noqotaba, haddii ay dhanka set piece-ka ama dhinacyada kubadaha laga soo laado ay yihiin. balse markuu dishootaha ama boxiga oo dhaxda oo ka soo kalo kooxda kale intuu ku weerarayo ayaa waxa markaasiba ku soo deganaya barnaamij cusub oo markaasi dhaanta u daaraya ciyaaryahanada difaaca iyo qadka dhexe ka ciyaara kooxda ka soo horjeeda. dishootaha waxaad arkaysaa markuu Mohamed Salah ku jiro ciyaartooy iska jaasaya oo ciyaaraya ama dheelaya ama dhaanteynaya sidaad u taqaanaba gambiskiisa iyo firsadiisa cusub ee xirfadiisa cusub ee Mohamed Salah oo dhawan oo la soo baxay. haddaba Liverpool iyo Mohamed Salah Mohamed Salah ayaa markaasi ciyaartu markuu uu duqoobayo ay gadaal kaga macaatay, mase asiga ayaa istusayo kooxda Liverpool oo leh 5 sano oo cusub iga saxiixda si aan u dhuuqo lacagta Premier League. haddaba daawade qodobkaas faaqidaadiisa iyo weliba commentigiisa waa xaqiina wixii markaa ku soo kordhana idinka ayaa idinkaga baahanahay in commentiga qaybta hoose inoo reebtaan. sidoo kale kooxda Arsenal weli ma aysan ciyaarin oo waxa la ciyaari doonta kooxda Brentford ee dhigeeda ah, kooxdaasi ay iskala dhisan yihiin magaalada London ee dalkaasi Ingiriiska. haddaba Brentford waa koox aad iyo aad u adag oo kulankii soo dhaafay ay barbara la gashay kooxda Brighton. haddaba kooxda Arsenal ayaa iyaduna u muuqata mid aanan ka rajo dhigin inay ku guuleysato horyaalkan iminka socda ee sanada 2024 iyo 2025. haddaba horyaalkan iminkan kooxda Liverpool waa ay sii dheereysatay, walow kooxda Arsenal aysan weli dheelin, Liverpoolna ayadana hal kulan oo Everton oo baaqi u yahay. laakiin kulanka baaqiga ah waxba ayaa ka dhici karo. Everton xilligan waxa ay noqotay koox aad iyo aad u adag, walow xalay tadhiiga loogu diray oo Nottingham Forest ay ka badisay 2-0 lagu garaacay. inkastoo kooxda Everton, Chelsea iyo Arsenal iyo Manchester City ba ay bareejo la soo gashay, waxay dadku inta badan islahaayeen Everton awoodeeda ayaa soo laabatay, laakiin xalay ayaa dhegta dhiiga loo duray. Boss, she's just been dumped. Hey, this phone is for you. Chelsea ayaduna waxay caawa la ciyaari doontaa kooxda Ipswich Town oo ay markaasi isla ciyaari doonaan, walow Chelsea ay noqon doonto koox away ah oo ku ciyaareysa away team ama sida loo yaqaano away home. kooxda sidoo kale Man United oo ayaduna maalmahan xalkeedu aad u liitay ayaa caawa la ciyaari doonto kooxda la yiraahdo Newcastle United oo maalmahan carcar ah. sidoo kale Aston Villa iyo Brighton Albion ayaa markaasi isla ciyaari doonaan. kulamadaas iyo kulamo kaleento ayaa la ciyaari doona. sidoo kaleento wixii ku soo kordha barnaamijkeena Sportiga ayaa dib ugu soo faaqidaadi doona. saaxiib haddii aad nala soo gaartay ilaa iyo dhamaadka warbixinteena, follow inoo dheh page-ka, sii share garay muuqaalkaasi oo u gaaro meel dheer. waa saaxiibkeen Maxamed Abuukar Baariyo idin leh sidaa iyo nabad galyo.